waa tahay xaqadka telefoonka imika si toos ugu jira gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Soomaaliyeed ee Khaatime Said Maxamuud Sheekh Umar Xasan. waa tahay gudoomiye waxa dhawaan magaalada Buuhoodle soo gaaray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatime State of Soomaaliya. madaxweynuhu in muddo wuxuu ku sugnaa deegaanka Buuhoodle isagoo kulamo gaar la qaatay beelaha deegaankani. ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu safar ugu ambabaxay Balecad. marka bal waxaad faahfaahin naga siisay inta aad ka ogtahay safarka madaxweynaha ee deegaanka Balecad. bismillahi raxmaani raxiim. marka waan salaamayaa ummadda reer Khaatime meel kasta ay joogtana waan salaamayaa. marka ku xigta madaxweynuhu maatida Buuhoodle ka soo degay kulamana uu la yeeshay wixii halkaa maamulka joogay iyo odayaasha beelahaba. wuxuu usoo gudbay Balecad oo uu ka dhici doono shirweyne wadatasha ah oo golayaasha Khaatimo ay marka hore gelayaan, golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda iyo golaha dhaqanka. kadib wixii go'aamada kasoo baxaan kolley dadweynaha waa loo gudbin doonaa haddii haydankiisa ay ku noqoto. wax kale oo haatan dhibaho meesha ma jirtaan. gudoomiye shirkaasi muxuu ku saabsan yahay, maxaa looga hadlayaa? shirkaasi waxaa looga hadli doonaa isaguna mudduu maqnaa, waanu kala maqnay muddo dheer. xubnihii iswaraysiga halka wixii ka jiray iyo wixii isaga uu lasoo kulmay waraysiga uu dhacayaa. kabacdina wadatashi waa dhici doona haddii haydankiisa ay ku noqoto ku jahaysan qaab socodsiinta howlaha maamulka Khaatimo insha Allah dhow xilliga dhow. waa tahay gudoomiye haddaan su-aasheeda sii wato garoonka diyaaradaha Buuhoodle waxaa kasoo degay diyaarad waday agab ciidan sida tuutaha ku labistaan ciidamada militarigu iyo sidoo kale dawooyin. bal dhinaca xoreynta maamulka maxaa idinka qorshaysan? inkasta oo aanay ku fiicnayn in talada laga hordhaco, haddana waxaan filayaa xalka ama tallaabada ugu horeysa ay noqon doontaa waxa weeye in Khaatimo qaado dagaal ku jahaysan xoreynta deegaamada Khaatimo ee cadowga haysto. waa tahay magaalada Buuhoodle muddooyinkii u dambeeyey waxay ahayd mid qasan, waxaana soo gaarayay wufuud iyo sidoo kale wasiiro ka socda maamulka Somaliland. hadda sidaad ogtahay waxaa ku sugan wasiirka caafimaadka Saleeman Xaga Toosiye oo lagu soo dhaweeyey. bal ka warran arrinta iyada sidee u aragtaa ka maamul ahaan? wallahi waa waxaan aada uga yaabsanahay weeye. dadka reer Buuhoodle ama reer Khaatimo iyo maamulka SNMtu way iska warhayaan, waana is og yihiin inay marba qof yar oo heeca ah soo diraan oo ay yidhaahdaan hebel baa yimide aan jiifso guri kamida guryahaaga, markuu tagana soo bax. wax dhadhana oo ay kordhiso ma aqaano, wax jirana maaha. iyagana dan baa ugu jirto, lacag baa lagu siiyaa. Buuhoodland tigi lacag baa lagu siiyaa. isla marka uu halkan yidhaahdo gurigiisuu galaa. warbaahintana mid hadiisa kasoo kaxaystay buu marba yani ka duubta. gurigiisa isagoo dhex joogu intuu labisto suur xidha haddana duurka markata iska dhigaa. yani wax dheer oo dhaqdhaqaaqa oo uu samayn karo ama uu ummad wax u sheegi karo ma ay jirto. wax ay ku kordhinayso kuwa soo diraya iyagana ma jirtahay. Buuhoodle hal wasiir iyo laba wasiir iyo xukuumadda siiraan iyo midna waxba kama bedeli karto mawqifkooda. dhulka intii ay haysteenna waa la ogyahay. inta kalena waxay doonayaan inay qabsadaan. waa la isagaa Buuhoodle wixii shalayta ka dhacay, marka cidina uga jixin mayso. waxay doonayaan inay khilaaf ka abuuraan oo reer Buuhoodle isku dhaco iska hor yimaado, laakiin ma dhacayso. wax kaloo isticmaalayaana ma jirto. waa tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Cadde wuxuu dhawaan warbaahinta ka sheegay garoonka Buuhoodle in ay kasoo degayaan diyaarado aan hoos iman xukuumadda Somaliland. waxaana sidoo kale ku baaqay Buuhoodle in lagu qabto tala qaran. wasiir halkaa gaadhna uusan waxba ka bedeli karin. war arrintaa iyada maxaad ka leedahay? anigu inaan la yaalo jawaabi maayo.
inalayaal garoonka buuhoodlana waxba kama khuseeyaan dadka reer buuhoodle isagaa dhistay isagaa samaystay isaga in looga soo degayaa isagaa looga dhoofayaa wax shaqaa oo uu ku leeyahay ma jirto nin inalayaal hargeysa kasoo hadlayaan aniga waxba ka oran maayo